شينا وساشا وديسي وسؤال runtii aad u qiimo badan isla markaana ay dad badan isweydiinayaan qof walba inta uu deegaanka joogo wuxuu la yaab ka badnaa sida xaqiiqada ah waxaan tagay 12 gobol ee deegaanka sidoo kale waxaan maray degmooyin badan oo ka mid ah deegaanka meel walba aan marayay waxaan ku arkay bulsho kala duwan waliba dadku Soomaali ha wada ahaadeen laakiin lahjada luqadda lagu hadlayo hab dhaqanka deegaaminta dadku u kala degan yihiin inta uu kala duwan yahay mar waxa soo oranaysa dadka luqadda ka dhaxaysa ee Soomaalinimo jirka laakiin sida kale hab dhaqanka loo kala gedisan yahay sidoo kale waxaan arkay meelo deegaanka Soomaalida kamid ah laba qof oo Soomaali ah oo deegaanka Soomaalida ku wada nool oo haddana aan isfahmaynin luqad ahaan maxay yeelay kuma hadlayaan qaybna luqadda Soomaaliga hada ku hadlaan qaybna luqad kale isticmaalayaan sida gobolka daawo oo kale marka sida kala guurka qaababka guurka loo kala guursado way kala duwan tahay meelaha qayb gabadhii ayaa wax lagu darayaa lagu siinayaa sida ka jirta gobolka faafan oo kale waxyaabo dil la bixiyaa dadka lagu daro qoyska marka la dhisayo gobolka doolo oo kale ama qorraxay oo kale markaan dhinahnane gabadha ayaga xoolo laga qaadaa oo 15 halaad qori sidii bariga hore jirtay oo kale ayaa laga qaadaa marka waxa la oran karaa deegaanada qaybne ayaa gabdhaha wax ku dara qaybna ayaa wax ka qaada sidoo kale waxa jira deegaanada qayb lagu sharfay lagu oranayo haddaad gabar naga guursanayso waan ku dhisaynaa waan ku dajinaynaa noo joog bas gabadha guursan leh marka waxa kala soo baxaysa deegaanada iyo waxyaalo ay ku kala duwan yihiin hab dhaqanka deegaanadu waxyaalo kale saameynta mudan waxa mudan dadka loo sooro hamaan soorka waxyaalo la isku sooro deegaanadu way kala duwan yihiin macnaha deegaanka aan dhahay laakiin gobolada iyo tuulooyinka iyo meelaha dadku ay kala duwan degsiimaha loo kala dago uu kala duwan yahay sidoo kale waxa kala duwan cuntada la isku sooro meelaha qayb waxa lagu sooraya caanaha geela iyo hilibkii meel la soor iyo xasiid baa lagu sooraya marka waxa la oran karaa deegaanku bulshadu way degan tahay laakiin waa la kala dhaqan duwan yahay lahjadoo kale meel ayadan fahminba af Soomaaliga ereyada la isticmaalayo oo sida gobolada marka ka timaado doolo oo kale oo aad timaado erer iyo marka aad joogto doolo isku lahjad inaysan ahayn inta badan waa loo yahay marka waxaan leeyahay waxa lagu saameynta badan waxay ahaayeen guurka martisoorka iyo lahjada ama luqadda Soomaaliga saddexaas ay ugu leeyahay badnaa waxyaalo kale laga yaabana way jiraan laakiin halka kuma soo koobi karo aad baa maasanta